ciyaartoyda xulka kubadda cagta ee degmada warta nabadda ayaa gaaray galabta wareegga afardhamaadka semifinalka tartanka kubadda cagta ee degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir ee 2023 kadib markii halkan ay kaga badiyeen dhigooda championki degmooyinka ee Dharkiiley ciyaartan waxay ahayd ciyaartii ugu xiisaha badneed ee tartanka degmooyinka maxaa yeelay labada degmo waxa isku dambeeyay sanadkii 2021 markaas Dharkiiley koobka ay ku guuleysteen ciyaartoyda degmada warta nabadda oo hogaaminayo macalinkooda amaan iyo sidoo kale ciyaartoyda kale ee degmada iyo gudoomiyaha degmada ayaa halkan ku soo bandhigay ciyaar wanaag waxaana qaybtii kubadda ciyaarta ku soo ilaatay barbaro bilaa gool la'aan ah laakiin qaybtii labaad ee ciyaarta warta nabadda waxa u suurta gashay inay helaan goolka kaliya ee guusha waxa shabaqa gaaray laacibka lagu magacaabo Cabdicaziis Maxamed Maxamuud kaas oo dhaliyay gool taageerayaasha iyo sidoo kale ciyaartoyda warta nabadda u dabaaldegeen goolkan waxa uu ku noqday la kulan gashay ciyaartoyda Dharkiiley kuwaasi oo keentay in ciyaarta waqtiga loogu talagalay ay ka soo laaban waayeen Dharkiiley in kasoo heleen fursado haddana waxaad moodaa ciyaartoyda warta nabadda inay ka go'naydba inay ka argoosadaan wixii Dharkiiley ay sameeyeen 2021 markaas koobka degmooyinka warta nabadda laga soo qaaday gudoomiyaha degmada warta nabadda Seenad Maxamuud Warsame Xabsay ayaa si weyn halka ugu dabaaldegtay iyadoo hogaaminaysa ciyaartoyda waxaana ay socod ku soo mareen guud ahaan garoonkan waxa ka muuqanaya warta nabadda inay yihiin koox ay ka go'an tahay koobkan ay ku guuleystaan ugu horeen waxa TV qaranka la hadashay gudoomiyaha degmada warta nabadda Seenad Maxamuud Warsame waxaana ka warbixinaysaa dareenkeeda iyo guusha ay gaareen ciyaartoyda بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى ما هاد إسكاله إنه صورة جلية شعب كان وحي إنه فيلاين إن ما أنت هالكان كلا بحنا تيفي قرن كنا وكم هالسنتين يدين كنا واحد أركتنا هذا تاجر ذي مقالة وحكوها رمالها ناسلة هاي ورمان تدريورت أنا بدي وده هاين قلبتها إكساكتلي مرك عيارت وجوري سو عيار عادي لو عيارة أنت صوت تاجرة إيه كل إيمادين تدبي تبين دقمي سدح الدقيقة وعدي كرا ما بقي إيمادات كان بورت أنا بدي كل جد مرك ميلول بيجوجين إسكسو وعدين مانت قلت حلو أركي أديكو بقلال تجرياش عيارتي ده هجامينية runtii dabaaldegaya farxadan iyo guusha soo katibit wallahi horta guushan waxay ku imaaday ina aaminsanna anaga ina guuleysanayno ilaahayna tala saaranay ciyaartoydeedana aan ku kalsoonahay gudoomiyaha isboortiga degmada warta nabadda Saacid Birqaaye ee maamulka degmada waxay la hadleen TV-ga qaranka waxaana ka warbixinayaan dareenkooda waa maadsan tahay mahadoo dhan ilaahay u sugnaatay alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta guusha aan gaarin waa ku faraxsanahay waxaan si qaas ah ugu mahad celinaa TV-ga qaranka oo maaragtay hadeertaan si live la iga daawanayo bulshaweynta reer warta nabaddana wixii aan naga filaydeen waa keenay annaga iyo maamulkeena iyo ciyaartoydeena isgarabsanayno ugu dambeyn guushii aan raadinaynay Dharkiiley inaan ka aarsana waa keenay maanta alxamdulillaah ilaahay mahad iskale oo garoonka anagoo caafimaad qabno naga soo bixiyay guushana dhankeena mariyay aad ugu faraxsanahay guusha maanta degmada la gaaray ilaahay mahad iskale sanadkii hore Dharkiiley koobkeena qaaday qadar ilaahay noo qoray ahayd maanta inaan mar labaad kulanno oo wareegga sideed dhamaadka ku kulanno mid ilaahay qoray ahayd maanta annaga koob ma aan ka qaadin laakiin marxaladda xigta oo koobka lagu qaadi lahaa ugu sii dhawaanay alxamdulillaah ilaahay mahad iskale warta nabadda hadda waxay sugi doontaa ciyaarta maalinta barita ah ee degmooyinka u dhaxeeya Cabdicaziis kuwaasi oo degmadii soo baxda ay noqon doonto in damcan warta nabadda ay la ciyaaraan semifinal hore waxa tartanka ugu soo baxay oo semifinalka soo gaaray degmooyinka kala ah Yaaqshid iyo sidoo kale Goboley kuwaasi oo hadda isku soo aaday championki degmooyinka Dharkiiley tartankii waa laga soo reebay waxaana hadda tartanka u soo haray oo taagan warta nabadda Goboley iyo Yaaqshid Cabdirashiid Maxamuud telefishinka qaranka magaalada Muqdisho